warmurtiyeed ka soo baxay wadahadaladii u dhaxeeyay dowlad goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiinta beesha sade Kismaayo waa 25 Maarso 2016 wadahadal nabadeed oo ka socday magaalada madaxda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland intii u dhaxaysay 20kii bishii February ilaa 6dii bishii Maarso ayaa wajigiisii koobaad wuxuu dhaxmaray guud ahaan siyaasiyiinta beesha sade siyaasiyiintu waxay soo saareen 14 qodob oo soo koobaya tabashada guud ee beesha wajigii labaad ee wada hadalka oo socday intii u dhaxaysay 7 ilaa 19kii Maarso wuxuu ahaa mid dhaxmareeyay hoggaanka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo guddi ka kooban 17 xubnood oo siyaasiyiinta beesha matalayay wada hadalka wajigii wuxuu ahaa mid si gaar ah diiradda loogu saarayay xal u helista khilaafkii siyaasadeed iyo tabashooyinkii beesha ay ka tabanaysay maamulka muddadii wada hadalku socday waxaa labada dhinac si saraaxad iyo kalsooni ku jirto uga wada hadleen dhammaan qodobadii khilaafku ka jiray waxaana gabagabadii la isku afkartay qodobada hoos ku qoran qodobada soo socda 1 siyaasiyiinta iyo bulshaweynta beesha sade ee reer Jubbaland waxay taageerayaan heshiiska la gaaray waxayna si buuxda u aqoonsadeen dowladda iyo hoggaanka Jubbaland Number 2 in bulshaweynta Jubbaland iyo dowladdu si wada jir ah isaga kaashadaan cid kasta iyo wax kasta oo colaad hurinaya Number 3 in la dedejiyo dib u dhiska iyo isku dhafka ciidamada qaranka iyo kuwa Jubbaland loona sameeyo hoggaan isu dheelitiran oo mideeya mid walba isla markaana la taageero howlgalka AMISOM qodobka afraad in beelaha deegaanka si cadaalad ah u wadaagaan awoodda maamulka iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo kuwa xukuumadda sida garsoorka cadaaladda arrimaha bulshada nabadgelyada iyo siyaasadda Number 5 in la dhammaystiro habraaca sharciyeed ee degmanimada buurdhuuba iyadoo la waafajinayo dastuurka Jubbaland Numberka 6 in la dedejiyo dhisitaanka golayaasha deegaanka ee degmooyinka iyo gobollada Jubbaland si loo helo maamul haysta kalsoonida shacabka Numberka 7 in deeqaha iyo mashaariicda horumarineed si isu dheelitiran loogu qaybiyo gobollada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Jubbaland Number 8 in la dhiso guddi gaar ah oo baaris ku sameeya wixii tacadiyo ahaa ee dhacay naf iyo maalba intii uu khilaafku jiray muddo koobanna ka soo tala bixiyo sidii loo xalin lahaa arrintaas Number 9 in la abuuro guddi isku dhaf ah oo ka kooban dowladda ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Jubbaland UN-ka iyo AMISOM kaas oo ka shaqayn doona sidii ay ciidamada 7 sharaaf lagu soo celin lahaa looguna biirin lahaa ciidamada kala duwan ee qaranka iyo dowladda goboleedka Jubbaland
number 7 in qaybtii qaybinta xubnaha 10 xildhibaan ee dhiman lagu saleeyo miisaanka deegaanada iyo tabashooyinka jira. intaas ay ku dhamaadeen halkan warmurtiyeedkii waxa hoos ku qoran waxaa loogu baaqayaa dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo dhammaan deeq-bixiyaasha in ay taageeraan heshiiskan iyo dhammaan arrimaha la xiriira dib u heshiisiinta oo dowlad goboleedka Jubbaland u ah mudnaanta koobaad isla markaana ka qayb qaataan xoojinta ammaanka horumarinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka Jubbaland. billahi tawfiiq. ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland iyo reer Jubbaland dhamaanteed martigelinta shirka kan quruxda badan oo natiijada fiican oo xaqa iyo xalaasha iyo waxa Rabbigay jecel yahay oo amaanay ka shaqeynayay. mahad celintaas ka bacdi waxaan si gaar ah ugu farxsanahay dabeecadda shirka marka aan leeyahay waxaan ka wadaa dhaqan inaga lumayo sharaf ahaa oo gob ahaa oo la gumeeyay baa ii muuqda. macnaheeduna waxa weeye annagoo dhaqankaan ognahay qof walba og yahay hebel ma fadhiyo dowlad hebel ma fadhido kuwaasu ma fadhiyaan inaysan fadhiyin oo uu dhaqankeennii gobta ahaa ku fadhiyo yaan ka mahad celinayaa ilaahayna uga mahad celinaya. midda labaad heshiiskan waa la galay waa la qaatay waa niyad waa dhab ilaahayna ha hirgeliyo. heshiisna waa kii hirgala mid qoran maahan waa kii hirgala oo la qaato kulligayo dhammaanteen reer Jubbalandna inuu hirgalaynu diyaar u nahay ilaahayna haynoo hirgeliyo tabarteen iyo dadaalkeennana aynu ku darro. waxaa intaa ii weheliya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaa ilaahay og yahay inaysan ciidan ajnabi iyo caqli ajnabi iyo calaf ajnabi midna inay dowlad noqoto oo sharaf yeelato oo karaamo yeelato alla igu og baysan ku gaarayn. sababtuna waxa weeye dunidaba kama dhicin wax adduunka ilaahay samaystay weli ka dhacay ma ahan wax la sugayana ma ahan. sida awgeed waxaan rajaynayaa inaynu isku tashanno haddaynu Soomaali nahay. waxaan rajaynayaa haddana inagoo reer Jubbaland inaan isku tashanno inaynu nabad helno inaynu isku tashanno cadawgeena inaan u mudowno inaynu ku tashanno inaynu gaaro khayraadka dalkeena inaynu la soo bixi karno. waxaan shirka kaga faa'iideysanayaa inaan u hambalyeeyo una duceeyo reer Puntland oo isku tashaday ilaahay taladoodiina ku taageeray kuna sharfay karaamana ku leh oo aan leeyahay anoo ka faa'iideysanaya nabad ilaahay iyo isku tashigiinu idinkugu jira cid idinka maqan nabad ha ka raadinina sidaad isugu tashateenna Allah idinku garab galo. salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa xusid mudan in heshiiskani uu yahay mid dhinacyadu ay si toos ah ugu wada hadleen una wada gaareen uuna si buuxda uga madax bannaanaa faragelin shisheeye ha noqoto mid dhexdhexaadineed ama mid dhaqaale. tanina waxayna tusaysaa in dadka Soomaaliyeed ay arrimahooda maareyn karaan haddii la isu madax banneeyo. heshiiskan looma samayn in cid la isugu bahaysto waxaa loo sameeyey in bulshada Jubbaland la mideeyo. looma samayn in cid kale xaqeeda lagu qaato waxaa loo sameeyey in cid waliba ay xaqeeda hesho. heshiiskan oo ka kooban 10 qodob waxa uu dhinacyada saaraya waajibaad la doonayo in sida uu yahay loo guto.
waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu si gaar ah isaga xilsaari doono habsami u dhaqangelinta heshiiskan. annana waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa in mas-uuliyadda arrintaa nagaga aadan aan sida ugu habboon u gudan doono. inshaalla madaxweyne, walaalayaal, saaxiibayaal, gaaritaan garashaa ka horraysa. gaaritaan garasho ayaa ka horraysa. waxaa loo baahan yahay inaynu garanno halista dalkeenna iyo dadkeennu ay waqtigan ku sugan yihiin. ورمضة داية وغير لها كامريسو إلا حسوقي إلا ليه كاليه شهادة قادر يسعى أنت هتكلم ما بقرني شهادة واحدة علمي هذه ما لها شهيد كوحي يعني ما قرني يعني كان وشوي وحواري محيطة وأي عدة يسوي سنة وأنا ما نهض ولا يشرب كلنا بيوبتين وهذا هذا والدقوة وحيني شيء اللي كان بيا كاتبته ككاتين مركز ميلو هي ولا قارك ونرش على كدع روح على النظام من نرشة كدعك هي من أنت ميلي هي كفير صدي إنترنت قالوا يسوون داعش بانقاذن يهل بانقاذن تقول هذا ما كان كبح سوريا يتعب وحكوا على رواية عد عنده حبوب شتاء مجد هذول مركوا على قوة تربية الإنجليزي كيجينا على ليه المعنى ضرب عليه ولا يقول يجينا كان على المصور عائلتها لا دبوا وين هو ما أنت صوماليا وحكرت كذي عقاشة دي سياسية دي علماء دي هويين كذي ما تهاجمين بدل ما كتشوف صوارنا لو أنت المنتج كبوشيتا إيه كانوا المنتج اللي يوكل كبوشيتا وحامين وضدك صوماليا إيه السكوت الشران أو أي الشران أو وناء جودة يهرمر كودة يصومالي نوضة نديله فكران مركا المنتج جودي راني فيتشوبلان ما أنت مركا تان دنت تشوبلان المسؤولية ده نصار المركا نقالنا قف كتيسة وسيء قويس كوجري كرا كالصومالي مركا نقالنا تشوبلان وياي كريسا ما أنت هذا نقالنا بقول كيو بقول تشوبلان كري يسكو حسابتنا أنا إني كري ترى نقالنا خريري إنه يقولوا محاسوب حي هذه ما أنت حمر إنتي قصته عاصمتي وحسبته الدولة دي حيها الله ما هو مالنا سامي إنه وحقول كرم دبك كاسو قال هكذا كان عليه وعلتها أنهم جينا يفكر كنا كل أن قروا قادنا أن سكوت دينه إن أن هادنا وحمانت أن دورنا وحكبر وحمانت رأينا وقف على صارنا مش قال كلام وحن آل سولويني تذكي هم كان قوة هذه أنا قولها صار قال أنا نقطة أنا تقول هم نقطة إنه والله الله ولي بدك صواري يوم تنسي مادام أي والله فريستان وارد ولكن عبد شيء وهرب عن هذا كان سوق قوانا وحان أنا مر والبقوا قف كنور دحياي إنه نحل أهين يعني حلكوا ضدكوا إلى إياه والله الله وعنا جينا يا مانتا حفلتها من يكورس وحكوا حلم الهيد يلا أنت أنا لنا عبان كبلوحان قولوا إلى أنت أنا لها بحسن قدرت على يكون علينا نرجع